ciyaarahan kala duwan oo lagu maamuusay maalinta dhalinyarada adduunka oo ku beegan 12 bisha Agoosto ayaa galabtay lagu qabtay garoonka kubadda kolayga ee Wish Stadium magaalada Muqdisho waxaana ka qayb qaadanayay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo kala hogaaminaya kooxaha kala duwan sida kubadda kolayga iyo xarig jiidka. wasaaradda ciyaaraha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa soo qaban qaabisay ciyaarahan fudud waxaana ka qayb galay daawashadeeda ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre, wasiirka amniga gudaha, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho iyo boqolaal shacab ah si dhalinyarada Soomaaliyeed ula qaybsadaan maalinta dhalinyarada adduunka. xildhibaan Luulay Cabdi Aadan iyo xildhibaan Dahaba Zuuso oo kala hogaaminayay laba kooxood oo dheelayay kubadda kolayga iyo xildhibaan Ikraan Yuusuf Xirsi oo dhammaan ka wada tirsan golaha shacabka ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ugu baaqeen inay ka qayb qaataan horumarka dalka. waxa laga faa'iideysto dhalinyaradu waa xoogii dalka say dib-dhibsinta uga dib qaataana wacyigelin loo sameeyo mar walba. sidoo kale wasiirada waan mahadcelinayaa, waxaan leeyahay wasiir hawsha aad wadi waa hawl wanaagsan. dhalinyaro haddaad banaanka jirtaan iyo haddaad baalayacna darbiyada u fadhidaan dawladii dhaqaaqda ee soo gaara meesha la taagan yahay waa u jeedaan nabad iyo nolol adduunka intaad joogtid qof walba meel kastuu joogo wuu u baahan yahay nabad iyo nolol. wuu ka mid ah wasiir Ducaale waxaan ku sheegaa ra'iisul wasaare maanta waxaa meesha ka soo kulmay gudoomiye Taabit bahda isboortiga isku yimid waxaan leeyahay soo dhawaad maadaama haween ay tahay aniga waxaan ahay ka mid gabdhaha isboortiga ee ka ciyaar jir gabdhaheena. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Taabit Cabdi Maxamed ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay maalinta dhalinyarada adduunka. dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta adduunyada ka joogaan gaar ahaan Muqdishaawiyiinta waxaan leeyahay hambalyo maalinta dhalinyarada adduunka. sidaa darteed waxaan rajaynayaa inaan si wadajir uga faa'iideynaa rajaynaa insha Allah taala. dad badan oo haddii aan kaftamo dhihi jiray Boronia aqaana ama baaskada aqaana ma sheegaa magacooda laakiin maanta inta lagu sheegayna inay waxba aqoon oo ay la fadhiyeen. wasiirka amniga gudaha xildhibaan Maxamed Abuukar Islow Ducaale iyo wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya xildhibaan Khadiija Maxamed Diiriyo oo iyagana ka hadlay gabagabadii ciyaaraha ayaa xusay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay la qaybsanayaan maalinta dhalinyarada adduunka. ciyaarahan ay qayb ka yihiin munaasabadaha waaweyn ee lagu dabaaldegayo maalinta dhalinyarada adduunka. kaabayga joogo mudane ra'iisul wasaare ciyaarahan waxaa loogu talagalay in oo looga qayb qaato munaasabadaha kala duwan ee lagu xusaayo maalinta dhalinyarada adduunka. kooxihii iyo shakhsiyaadkii ku guuleystayna gabagabada habeen dambe abaalmarinadooda la siin doonaa. waxaan u hambalyeynaa kooxda midnimo isla markaasna waxaan u hambalyeynaa kooxda nabad iyo nolol ay ku guuleystay xarig jiidka. marka aniga gudoomiyaha barbardhac baan nahay weli kan badan markaan tartami doonaa Abdullaahi Raad. waa mahadsantihiin aad aan ugu faraxsanahay. aniga gaar ahaan way taabanaysaa isboorti waa kamid ahaa berisamaadka. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.